kulanti wanaagsan saaxiibayaal war degdeg ah hogaamiyaha dowlad goboleedka koonfur galbeed aadan maxamed nuur madoobe maalin kasta waxa uu ceeb lugaha u gelinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud sidiisa dhanba ninkan nin isku filan maaha shalay waxa uu codsaday in loo dhiso dowlad goboleedka koonfur galbeed waxa kaloo codsaday in lafta gareen looga saaro magaalada baydhabo waa loo sameeyey waxa kaloo codsaday in laga bixiyo lacagtii uu geli lahaa doorashada dowlad goboleedka koonfur galbeed waa la siiyey maantana waxa uu la yimid codsi kaloo intaasi ka duwan dowladda federaalka soomaaliyana way u sameysay laakiin qoladii loo diray 3 daqiiqo kuma qaadan inay kasoo jawaabto codsiga dowladda federaalka soomaaliya ay u dirtay madaxweyne xasan sheekh maxamuudna waxa uu garaabsaday in ceebtii ugu weyneed oo lugaha kula jiro haddaba maxay tahay ceebtan iyo dhiiqadan uu maanta madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud madaxa uu geliyey hogaamiyaha koonfur galbeed aadan maxamed nuur aadan madoobe wararkii ugu dambeeyay ayaan idinla wadaagayaa sidoo kale magaalada baydhabo caawa waxaa ka jira taagtaag weyn taliyihii birmadka inuu baxay ayaan maanta idinla wadaagay aadan madoobena waxa uu qaaday tilaab kaloo culus lafta gareenna waa uu soo hadlay wararkii ugu dambeeyey xaalka koonfur galbeed oo saas u kala taagan ayaan idinla wadaagayaa soo dhawaa saaxiibayaal halkani waa tubta wararka haddii ay tahay markii ugu horeysay oo janalkeena idin soo gaarayo fadlan subscribe saarta haddii aad horey noola joogteenna waxaan si gaar idinkaga codsanayaa in muuqaalkan aad leeg noo saartaan hogaamiyaha cusub ee dowlad goboleedka koonfur galbeed aadan maxamed nuur madoobe ayaa maalin kasta waxa uu dhiiqo lugaha u gelinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud dowladda federaalka soomaaliyana maanta waxay dartiis u qaaday tilaab weyn oo ay ku ceebowday laakiin intaan idinla wadaagin tilaabtan dowladda federaalka soomaaliya ay qaaday laakiin la soo diiday aan idinla wadaago hogaamiyaha cusub ee dowlad goboleedka koonfur galbeed aadan maxamed nuur madoobe ayaa xilkii ka qaaday taliyihii ciidamada birmadka booliiska dowlad goboleedka koonfur galbeed sandheere kaas oo maanta gelinkii hore ka baxay magaalada baydhabo islamarkaana gaadhay magaalada buurhakaba ee gobolka baay ninkan waxa uu si rasmi ah maalinta buritaa ugu biirayaa ciidanka hogaamiye hore ee dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftagareen dadaalo madaxtooyada dowlad goboleedka koonfur galbeed ay bixinaysay 24 saac ee lasoo dhaafay ayaana guul dareystay iyadoo ugu dambeyn ninkan uu iska xaadiriyay buurhakaba halkaasina uu kula hadlayo lafta gareen ciidamo boqolaal ah iyo asigana maalinta buritaa waxaa lagu soo bandhigayaa dowladka dowlad goboleedka koonfur galbeed aadan madoobe asigoo taasi ka duulaya waxa uu qaaday tilaab kaloo weyn asigoo magacaabay bedelka taliyaha birmadka booliiska dowlad goboleedka koonfur galbeed waxaana loo magacaabay ninkan oo lagu magacaabo gaashaanle mustaf axmed oo loo yaqaano malaaq gaduudow ninkan waxa uu bedelayaa taliyihii ciidamada birmadka booliiska dowlad goboleedka koonfur galbeed oo maanta xilka uu ka qaaday hogaamiyaha koonfur galbeed aadan maxamed nuur madoobe isla markaana waxaa xilkan la qaaday markii uu ku biiray ciidanka lafta gareen iskana xaadiriyay magaalada buurhakaba xaalka magaalada baydhabo waa xun yahay aadan madoobena saaxiibadiisii ayaa sii siibanaya haddaba maxay tahay ceebta weyn ee uu lugaha u geliyey madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud maanta dowladda federaalka soomaaliya waxa ay ciidanka admis ka dalbatay in ciidanka hogaamiye hore ee dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftagareen ay ku daraan liiska madow ee argagixisada islamarkaana ay weeraraan maalinba maalinta ka dambeysana ay u daataan fariisimaha dowlad goboleedka koonfur galbeed fariisimaha hogaamiye hore ee dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftagareen ciidankiisu ay ku leeyihiin dowladka magaalada baydhabo dowladda federaalka soomaaliya waxaa kala caddahay sidii isaga difaaci lahayd ciidanka laftagareen oo awood weyn kusoo bandhigay magaalada baydhabo islamarkaana u xeydxeydanaya siday ula wareegi lahaayeen magaalada baydhabo laakiin admis oo codsigaas loo diray 3 daqiiqo kuma qaadan inay kasoo jawaabto iyada oo diiday inay weerarto ciidanka hogaamiye hore ee dowlad goboleedka koonfur galbeed dowladda federaalka soomaaliyana waxay u sheegtay inay gelayeen siyaasadda gudaha Soomaaliya argagixisada al-shabaab bas inay la dagaalaan ayay u sheegeen dowladda federaalka Soomaaliya wixii kale gudahana waxay u sheegeen inaysan gelin waliba afcad ayaa loogu sheegay dowladda federaalka Soomaaliya wajiga ayaana looga dhiftay warqadii codsiga ahayd ee admis loo gudbiyay madaxweyne xasan sheekh maxamuud cara ayuu gurigiisa la jeefaa waxa uu aaminsan yahay in ceebtan uu lugaha u geliyay hogaamiyaha koonfur galbeed aadan maxamed nuur madoobe wixii warar ay ka soo kordha xaalka koonfur galbeed oo kala taagan wararkeena dambe ayaad ku daawanaysaan soo dhawaad saaxiibayaal آمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أقاسمها قوت ماريها ماري كحجانك يو أقاسمها مامك ماريدا أقاسمها واحد الدقنك أقاسمها goobaha dalxiiska iyo la taliyaha
la taliya wasaaradda iyo borotokoolka wasaaradda intaba assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. salaan kadib runtii waxaan aad ugu faraxsannahay maanta inaan xarig ka jarno wasaaradda xafiisyo dhowr ah oo wasaaradda ka tirsan oo ay ugu horeeyaan xafiiska wasiirka iyo xafiiska wasiir ku-xigeenka iyo xafiiska la taliyayaasha iyo xogheynta iyo xafiisyo kale. runtii waxaan rabaa inaan magaca wasaaradda ugu mahadceliyo agaasimaha guud ee wasaaradda cabdulaahi xayir ducaale iyo agaasimaha waaxda maamulka maaliyadda oo arintaasi markaan imid oo aan soo hadal qaaday dhulka ka qaaday isu taxaluujiyay si ay u fuliyaan. waxaan ku dhisnayna annaga fikirkaan lahayn, laakiin waxaan ku dhisnay shisheeye kama qaadin oo safaarad uma tegin oo hay-ad uma tegin oo bajet dowladeedna nooguma jirin, laakiin dadaalkooda iyo muxuu ahaa howlaha ay qabteen waxay la kaashadeen rag saaxiibo Soomaali ah oo wasaaradda saaxiibo lah ayay la kaashadeen. tii ayaana keentay quruxda maanta halkan ka muuqato inaan gaarno. waxaan hore dib u dayactir ugu sameynay archive-ka oo ay raadi muqdisho leedahay 1951kii la aasaasay oo aan rajaynayno inaan isagana dib u casriyan ku sameyno keedkii si aanu u lumin taariikhdiina aanay u lumin. haddeer wasaaraddan ku xijinay insha Allah bisha September dhexdeedana dib u dayactir weyn ayaan ku sameyn doonaa tiyaatarka National Tiyaatarka qaranka hadduu Ilaahay yiraahdo. hawsheena kuma eka dhanka dhismaha, waxaan kaloo qaadnay dhanka shuruucda iyo siyaasadaha iyo habraacyada iyo xeer nidaamiyaasha annagoo ansixinay markaan nimid sharciga mideynta muxuu ahaa fariimaha dowladda ee ku saabsan argagixisada oo aan kala hadalka aan ahayn oo golaha wasiirada aan ka ansixinay. waxaan kaloo marinay sharciga dhaqanka iyo farshaxanka aan marinay muxuu ahaa golaha wasiirada baarlamaanka aan u gudbin doono. waxaan baarlamaanka gaarsiinay fariinta xogaha rasmiga ah muxuu ahaa sharciga xogta rasmiga oo golaha wasiirada hore uu ansixiyay. waxaan kaloo hadda noo yaala golaha wasiirada inoo yaala ruqsad siinta muxuu ahaa warbaahinta. waxaan kaloo ka shaqeynay habraacyada dhaqanka, habraacyada warbaahinta, waayo cid kastaba waxay sheegatay hay-ado dhaqan iyo shakhsi dhaqan dalkii waxa lagu dhex faafinayo waxa weeyaan waa la soconaa dhaqamo kale oo la soo manguuriya dalkii waxa waaye lagu faafinayo. si aan kaga hortagno waa inaan sharci u lahaanaa tilaabada aan qaadayno oo aan fulinayno inay jirtaa sharci waxyaabahaas xadidaya. sidoo kale dhanka dalxiiska habraacyo ayaan sameynay. cid kastaba waxay iska sheegataa dalxiis, cid kasta la iska soo geliyaa meeshay rabaan ay tagaan, waxay sameeyaan lagama warqabo. waxaan rabnaa annagoo dhiirigelinayno dadkaasi haddana inaan nidaamino nidaam dowladeed iyo wax sharci inaan ku nidaamino. warbaahintana sidoo kale ujeedka aanu sameynayno waxay tahay cid kastaba inaanay microphone qaadin. microphone-ka cidda qaadaysa waa in la yaqaanaa hawiyad ay leedahay, yaa wariye ah, yaa tiktoker ah, yaa youtuber ah, yaa facebooker ah, yaa waxa cid kastaba aanay sheeganin. iyo shuruucyo kale hadda oo farshaxanka iyo arrimo ku saabsanna waxaa hadda si weyn ugu shaqeyn doono insha Allah taala wakaaladda wacyiga oo aan rabno inay dadkeedii waxa waaye la soo baxno. waxaa kaloo qayb ka ah in si weyn ay wakaaladda murtida iyo wacyigelinta runtii u diyaar garoobeen hadda inay boorka iska jafaan iyagoo dhowr heesoo gubaaba ah waxa waaye abwaanadii hore iyo abwaanada haddaba waxa weeyaan ay soo saareen oo ay ugu dambeysay heestii uu alifay abwaan Cabdidhuux Yuusuf oo ku saabsaneed mas'uul haddaad tahay mucaarad ama muxaafad mas'uul baa ku saaran, iyo abwaan muxuu xeebow asagana saasoo kale heesoo saaray heese kaloo hadeertaan kusoo jiro, iyo riwaayado oo runtii waxa weeyaan shacabka lagu wacyigelinayo ayagana way socdaan. waxaan ku rajaweenahay 2 bil 3 bil gudahooda soo socoto inaan qabano tartankii dhaqanka, kooxaha dhaqankii waa naga halaabay. xataa ciyaarihii dhaqanka waxaad moodaa mararka qaarkiisa dhaqamo kale inay ku dhex jiraan, qaabka oo jaanta iyo qoobka ciyaarkeeda laftirkeeda inay saameeyeen. marka tartankaasi ayaan ku xadidi doonaa. tartankii waxaan rabnaa heesii hirgelay ayadana waa inuu xigtaa. tartankii artiska iyo farshaxanka qayb bay ka tahay. tartanka aliindiga asagana waxaan rabnaa
fanaaniinteena iyo dadkeena Soomaaliyeed inay identity lahaadaan oo la yiraahdo qofkan waa Soomaali la aqoonsan karo iyadoo markaasi labiskii iyo waxa waaye qofkii waxa waaye uu qaadan doono iyo fanaaniinteena waxa kale oo ka shaqeynona hadeertaan oo gudina mar dhow aan magacaabeena waxa la yiraahdo brand identity oo ah sumada aqoonsiga oo calankeena noocu yahay cid kastaba nooca iska sameeysataa kala iska sameeysataa astaanteena muxuu ahaa qaar waxa waaye shabeelle iska saartaa qaar waxa iska saartaa haram cad kalugiisa qaar waxay ku taagan yihiin warankii qaar waxay ku taagan yihiin caleemihii qaar waxay ka dhigtaan jaalo qaar waxa waayaan tiirarka taagan 5 6 ay ka dhigtaan qaar way isu jeediyaan qaar way kala jeediyaan wasaarad kastaba waxay iska sameysatay muxuu ahaa astaan ayada u gaar ah waxyaabahaas oo dhan heesihii qaranka laftirkooda heesta calanka iyo heesta muxuu ahaa astaanta qaranka oo aan la kala garanaynin marka la istaago ma gacanta halka la saaraya ma gacanta la deenaya ma iska sheekeynaya cid taqaan ma lahan heesta laftirkeeda ma laba jeer waxa music lagu celinaya mise hal jeer noqonaysa oo laba laab ma waxay noqonaysaa heestii in la qaado mise in la aamuso noqonaysa waxyaabahaas oo dhan wixii xadidi lahaa oo shacabkan horta identity ama aqoonsi inaan u sameeyno ay wasaaradda waxa weeyaan ku dadaalaysaa waxa kale oo wadnaa qorshe kale aan ku qalabeynayno dhanka fanaaniinta iyo sidoo kale warbaahinta howlahaas oo dhan waxaan rajaynaynaa inaan qabano waqti kooban biidnillaahi tacaala dadaalkeedana waa bilownay annaga waxa weeyaan waxaan la yiri wasaaraddaasna idin dhiibnay waxaan idinka rabnaa isbedel annagoo fulinayna amarkii ra'iisul wasaaraha iyo jiheenta iyo xukuumadda iyo waajibaadka madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ay nagu aamineen ayaanu dhaqaaqnay annagoo awoodeena iyo dadaalkeena iyo maskaxdeena iyo laxjaclada dalkan aan ka leenahay kaashanayna iyo annagoo tawakkuleena ilaahay subxaanahu wa ta'ala fa idha azamta fatawakkal ala allah intaasaan waxa weeyaan ku socona waana guuleysan doona insha Allah ta'ala mar kale waxaan u mahad celinayaa dhammaan inta maanta qaybta ka ahayd kulankan iyaga ah iyo dhammaan garbaheega dadkii runtii waxa weeyaan taagnaa oo agaasimaha guud iyo agaasimaha maaliyadda runtii aad iyo aad isugu dhawaan adeegay waqti badanna waxa weeyaan ku bixiyay waxaan kale u mahad celinayaa bahda wakaaladda wacyigelinta ee murtida oo runtii aan aad ula tacajubay qaabka wada shaqeyntooda oo dad bisayl dawladnimo daacadnimo laxjacli wadaniyad runtii ay ka muuqato markastoo aan imaado muxuu ahaa wakaaladda ama aan iraahdo waxaas la qabto runtii ma dhicin xataa inay daqiiqad waxa weeyaan kadib dhacaan iyo wixii diyaar ah inaan waxa weeyaan arko wasiiro badan halkaan soo maray waxyaabo badan waxa weeyaan wakaaladaasi ama tiyaatarka iyo waabari waxa weeyaan laga sheegay laakiin lillahi iyo wali taariikh waxaan rabaa inaan u cadeeyo shacabka Soomaaliyeed dad xalaal qoodata ah waa meelay joogaan runtii aad aan u jeclaystay hab dhaqankooda odayaal aan xoolo u baahneen laakiin xushmad u baahan ayaan runtii waxa weeyaan aan ku arkay waana u mahad celinayaa garabkooda ayaan nahay inaan dhaqankii xoojino maskaxdoodii iyo xikmadoodii anagoo isticmaaleenina aan dhaqankaasi Soomaaliya ee lumay dib waxa way u soo celino aad iyo aad ayaad markale u mahadsantiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.